أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا أقبلت يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. bishii ramadaan ee barakaysaneed ayaa inoo bilaabatay. waxaan rabnaa inaan marka aan isku baraarujinno duruus ramadaanka ku saabsan. soonka waa maxay xikmadda ilaahay subxaanahu watacaala uu jideeyey isagaa garanaya, laakiin culimmadu waxay kala soo baxeen qur-aanka kariimka ah iyo axaadiista markay fiiriyaan waxyaabaha ay tilmaamayaan. ilaahay markuu cibaadada jideynaya xikmad buu ka leeyahay. soonka aayadda inuu waajib yahay sheegaysa yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun. waxaa laydinku faral yeelay dadka ilaahay rumeeyayo soon sidii ummadihii idinka horey loogu faral yeelay, waxaad mudan tihiin inaad ilaahay ka cabsootaan. halkaasay culimmadu waxay ka qaateen xikmadda soonka ugu weyn inay tahay qofka inay u ziyaada alla ka cabsi, inay markhaati u noqoto soonku qofkaani inuu muumin yahay oo ilaahay amarkiisa uu qaadanayo oo muslimiinta ilaahay adeecsan uu ka mid yahay. haadihi xikma, taasi waa xikmad weyn. waxaa halkaa ku baxaya marka qofkii aan ilaahay rumaysnayn ee gaalka ahaa iyo qofkii muuminka sheeganaya laakiin munaafiqa ahaa, soonka markay ka tagaan waxaa caddaanaysa inaanay taqwo u ziyaadinayn. sidoo kale qofka haddii uu soomo laakiin uu ilaahay ka biqi waayo, waa kii nabigu yidhi man lam yadac qowla zuuri waalcamala bihi falaysa lilaahi xaaja fi an yadaca dacaamahu wa sharaabah. mar hadduuna qofku dembiga ka tegaynin sida beentay wixii la mid a, raashin uu ka tegay waxba tari mayso. badanaa qof sooman aan soonkiisa gaajamayo wax kale ka faa'iidin. taasi waa xikmada koowaad. xikmada labaad ee culummadu soonka ka soo qaateen waxaa weeye nafta in la tababaro, naf iyo shaydaan in lala dagaalamo. qofku markuu cuntadii iyo cabitaankii ugu fiicnaa noloshiisa daruuriga ah uu joojiyo, naftiisaa tababaranaysa, shaydaankiibuu ka adkaanayaa. taasina waa xikmad ilaahay subxaanahu watacaala uu ka leeyahay soonka ayaa la yidhaahdaa oo nafta looga adkaanayo. xikmada saddexaad oo culimmadu ay sheegaan waxa weeyaan qofka marka uu soomo gaajaa qabanaysa, oon baa qabanaya. waxaa laga yaabaa inuu maalqabeen ahaa weligii una gaajoonin. gaajada xanuunkeeduu dareemayaa, oonka xanuunkiisuu dareemayaa. waxaa ku dhalanaysa inuu masaakiinta u naxariisto. nabi yuusuf baa laga sheegay inuu yidhi waxaan ka baqayaa inaan dhergo oon hilmaamo qofka gaajaysan. marka qofku inuu soomo waxay keenaysaa inuu dareemo gaajada iyo oonka. labadaa markuu dareemana wuxuu xusuusanayaa dad maalin walba gaajaysan inay jiraan. taa markuu xusuustana waxay ku dhalinaysaa inuu markaa u naxariisto dadka gaajaysan, inuu u naxariisto ayay ku dhalinaysaa. taasina waa xikmad soonka ku jirta oo laga leeyahay. xikmadda afraad oo soonka laga sheegi karo waxa weeyaan, waxaa sheegayba caafimaadka. yacni insaanka ilaahay baa abuuray, wuxuu ilaahay u gartay sanadkiiba hal mar inay cuntada iska yareeyaan oo ay maalintii oo dhan cabitaanka joojiyaan, habeenkiina yareeyaan. taasi dhakhaatiirtu waxay ku tilmaameen inay jirka bani aadamka caafimaad u tahay. sidaa daraaddeed dad gaalo ah oon muuminiin ahayn ayaa mararka qaar xitaa sooma. maxay u soomaan? inay caafimaad ka helaan. halkaa fariin baan ka gudbinaynaa oo culimmaduna ka gudbiyaan, war qof walboo sooma u raashinka yarayso. dadka maalintii soonka intay maalintii soomaan habeenkii ka guda oo cuntadii maalintii ka badan habeenkii cuna, dadkaasi waxaa weeyaan sunnadii ma waafaqsana. waxaa weeyaan calooshu inay faaruqdaa la rabaa. in yar baa kugu filan. afurka in yar ka dhigo, cashada in yar ka dhigo, suxuurta in yar ka dhigo. timir buu nabigu ku afuri jiray, timirna waa ku suxuuran jiray. wax yar buu ku dari jiray hadduu ku daro. marka xikmadaha soomka haddaan soo koobno, ilaahay oo laga boqo subxaana watacaala, cabsida oo ziyaada, iyo qofku inuu naftiisa ku tababaro. hadduu wixii xalaasha ahaa iska joojiyo, xaaraantiina waa horu ka tegaya. masaakiinta inuu ku xusuusto. ugu dambeyn qofkaasi sooman inuu muxuu ahaa soonkiisaasi uu u noqdo uu soomay oo ilaahay dartii uu u soomay mid muxuu ahaa oo ka dhiga qofkaasi qof ilaahay subxaana watacaala adeecsan, caafimaadna uu ku helo. fariinta marka aan gudbinayno oon raba inaan ku darsado waxa weeye intaa oo fadligii soonka ah, raashinka la badinaya in la iska joojiya. gaar ahaan waxaan xaafadaha kula dardaarmi lahaa saambuuskan oo la karinayo oo wakhtiga badan gabdhaha ka dhuminaya in la iska daayo iyo waxan badan ee la samaynayo. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuuna waafajiyo soonka iyo fadligiisa, uuna kuwa xikmadaha ka faa'iidaysto oo laga hela naga dhigo.
هذا وبالله توفيق وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا.